ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 11 bisha koobaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo amray in ciidamada heegan buuxa la geliyo si ay u sugaan amniga muqdisho iyo ciidamo cusub oo ka hortagaya doorashada aan loo dhamayn oo maanta soo galay muqdisho wararkii ugu dambeeyay xogaha qarsoon ee laga helay kulankii xasaasiga ahaa ee musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda saddexda dawlad goboleed ku dhaxmaray muqdisho jawaari oo maanta kala loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo fashil ku yimid jadwalka doorashada dawladda madaxweyne farmaajo muxuu yahay qorshaha ka dambeeya in qorqor laftigaran iyo guud la wada dejiyo hotel digaal musharaxiinta mucaaradka oo cabsi darteed aan u shaacin doonin magacyada xubnaha nise ku jira guddiga doorashada lagu muransan yahay dawladda Soomaaliya oo caafis u fidisay dhalinyaro ay hubaysay Kenya iyo ma laga yaabaa in Donald Trump xilka laga qaado ka hor inta uusan aqalka cad ka tagin intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janalkan kusoo biiro subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada shargari oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janalkan haatan warkiyo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa amray in heegan buuxa la geliyo ciidamada dawladda si loo sugo ammaanka magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa ka digay in Muqdisho ay ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata iyo sidoo kale falal amni darro oo dhibaato ay ka soo gaari karta shacabka Soomaaliyeed taliyaasha ciidamada ayaa warbixin la wadaagay madaxweynaha waxaanay ballan qaadeen inay dardargelin doonaan howlaha lagu sugayo amniga caasimadda Soomaaliya kulankan degdegta ah ee madaxweynaha uu la yeeshay taliyaasha ciidamada ayaa yimid kadib markii magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya in dawladka Muqdisho la soo dhoobay ciidamo abaabulan oo la sheegay inay ka hortagayaan in doorasho aan loo dhamayn lagu qabto magaalada Muqdisho sidoo kale wararka qaar waxay tilmaamayaan in maanta ciidamo aad u badan lagu arkay inay soo galeen deegaanada dhaca dhanka waqooyi ee magaalada Muqdisho warbaahinta gudaha ayaa tabisay in saraakiisha ciidamada ay ku goodiyeen inay tallaabo qaadi doonaan haddii magaalada Muqdisho ay dawladdu ka bilowdo hirgelinta doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaa la soo bandhigay muuqaalada ciidamo hub iyo gaadiid dagaal oo lagu feeliyey duleedka magaalada Muqdisho waxayna ragga hogaaminaya ku goodiyeen inay gudaha u soo gali doonaan magaalada Muqdisho haddii la isku dayo in la boobo doorashada dalka arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalin ka hor xukuumadda federaalka ay iclaamisay doorasho aan heshiis lagu ahayn isla markaana aysan qayb ka ahayn Jubbaland, Puntland iyo musharaxiinta kale taasoo abuurtay walaac xoog leh oo isku gadaamay sii jiritaanka dawladnimada Soomaaliya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah siyaasiyiinta ka falceliyay ciidamada lagu soo bandhigay duleedka Muqdisho ayaa sheegay in walwal badan ay ku abuurtay marxaladan uu dalka ku jiro isagoo eedeen u jeediyay madaxweyne Farmaajo dhanka kalena jawaari maanta oo kale ayaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka doorashada Soomaaliya ayaa dib uga dhacday waqtigii hore loogu heshiiyay inay ku qabsanto welina ma cad xilliga ay bilaaban doonaan doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya jadwallo ay hore u soo saareen guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ayaa fashilmay xukuumadda Soomaaliya ayaana marar badan ku celcelisay in si degdeg ah loo gudagali doono doorashada 4 sano ka hor maanta oo kale 11 bishii Janaayo waxaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo doortay Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka guuleystay musharaxiinta la tartamayay waxaanay dad badan oo Soomaaliyeed filayeen in 4 sano kadib maanta oo kale Soomaaliya ay yeelan doonto gudoon iyo baarlamaan cusub hase ahaatee weli taasi ma muuqato waxaana weli shaqeynaya gudoon iyo baarlamaan waqtigiisu u dhamaaday doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan oo ka dhashay guddiga doorashooyinka u badan hal dhinac waxaana musharaxiinta madaxweynaha iyo maamul goboleedyada qaar ka soo horjeedaan sida dawladda ay u wado doorashada geesta kalena kulan saacada badan qaatay ayaa xalay waxa hotelka digaal ee ku yaala garoonka diyaaradaha ku dhaxmaray madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo midowga musharaxiinta madaxweynaha kulankan ayaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo ismariwaaga taagan iyadoo si adag loogu dooday go'aankii xukuumadda ee qaybta ka ahaa saddexda dawlad goboleed ee ku saabsanaa in la gudagalayo doorashada ilo wareedyo ku dhow kulanka ayaa sheegaya in musharaxiinta ay su'aalo weydiiyeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada saddexda ah waxaanay u cadeeyeen in aanay suurtagal noqon karin in dalka doorasho ay ka dhacdo iyadoo ay maqan yihiin dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland sida darteed loo baahan yahay in xal la gaaro si doorasho heshiis lagu yahay dalka ay kaga dhacdo dood dheer kadib madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa qaatay door ku saabsan
xaalka arrimaha cakaran isla markaana uu raadin doono dhinaca maqan si la isugu soo dhawaado madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa iyana waxay hordhigeen musharaxiinta dalab ku saabsan inay soo gudbiyaan magacyada xubnaha guddiga doorashada lagu muransan yahay ay cabashada ka keeneen ha yeeshee way ka biyadiideen arrintaasi waxaa kaloo loogu baaqay musharaxiinta inay kala hadlaan maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland inay soo magacaabaan guddiyada doorashada oo aanay weli soo gudbin si loo ambaqaado howsha doorashada dhinaca kale maxay tahay cabsida ay qabaan musharaxiinta oo ay u shaacin laayihiin magacyada xubnaha nis ee ku jira guddiga doorashada ee lagu muransan yahay golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa marar badan ku celceliyay in xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ay ka buuxaan xubno badan oo ka tirsan fila Soomaaliya iyo taliska nisa musharax daahir maxamuud geelle oo ka tirsan golaha midooda musharaxiinta ayaa si cad u sheegay in sabab amni dartood aysan u gudbin doonin magacyada xubnaha ku jira guddiga doorashooyinka ka tirsan nisa golaha midooda musharaxiinta ayaa cabsi badan ka qaba in dhibaato ka soo gaarto haddii ay gudbiyaan magacyada xubnaha nise ka tirsan ee haddana qaybta ka guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dad badan ayna la yaab ku noqotay in musharaxiinta oo marar badan ku celceliyay in guddiga doorashada ay ka buuxaan xubno ka tirsan hay-adda nisa haddana ay ka cabsadaan soo bandhigidda xubnahaas ay sheegeen in guddiga ay ku jiraan dhanka kale maxay tahay qorshaha ka dambeeya in qoorqoor laftigaran iyo guudlaw la dejiyo hotelka digaal warar kala duwan oo heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaya in madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug la dejiyay hotelka digaal ee ku yaala garoonka diyaaradaha Dancadde sidoo kale ammaanka madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxa la wareegay ciidamo ka tirsan nabad sugidda iyadoo la xadiday dhaqdhaqaaqooda muddada ay ku sugan yihiin Muqdisho saddexda madaxweyne goboleed ayaa guryo ku leh magaalada Muqdisho kuwaas oo inta badan ay degaan markay caasimada yimaadaan balse taasi ma dhicin xilligani xogtan helna ayaa sheegaysa in madaxtooyada Soomaaliya ay xubnaha ku cadaadisay inay degaan hotelka digaal halkaas sidoo kale ay degan yihiin guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka talaabadan ayaa la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo ka ogol leeyahay la socoshada dhaqdhaqaaqyada kulamada madaxweynayaashan iyo in aysan gelin kulamo aan ahayn kuwa ay fila Soomaaliya ogoshahay haddii ay galaan ay yihiin kuwa laga warhayo hotelka digaal oo ku yaala gudaha Aadan Cadde Airport waxa iskale shirkad Turkish ah oo madaxweyne Farmaajo xiriir dhow la leeyahay geesta kalena dowladda federaalka ayaa caafis u fidisay dhalinyaro ay hubaysay Kenya taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Taliil Biixi oo haatan ku sugan magaalada Balad-Xawo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay caafis u fidisay dhalinyarada ay hubaysay Kenya ee haatan ku sugan dhinaca magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari dalkaasi Kenya taliya Biixi ayaa ugu baaqay dhalinyaradaasi inay dib ugu soo noqdaan magaalada Balad-Xawo isaga oo ballan qaaday in dawladdu ay ka warhayn doonto sidoo kale waxa ugu baaqay waalidiinta dhalinyaradaasi inay dib ugu soo celiyaan deegaankooda si loo badbaadiyo mustaqbalkooda sidoo kale waxa uu intaas ku daray in qof walba ay waajib ku tahay difaacidda madax bannaanida dalka iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay horey ugu eedeysay Kenya in jabhada ay ku hubeynayso dhanka magaalada Mandheera si ay u soo weeraraan Balad-Xawo ugu dambeynna ma laga yaabaa in Trump xilka laga qaado ka hor inta uusan aqalka cad ka tegin afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa xildhibaanada la wadaagtay qorshooyin xilka looga qaadayo madaxweyne Donald Trump ka hor intuusan bilaaban hanaanka xilka qaadista Mrs Nancy Pelosi ayaa sheegtay in codka la qaadayo maalmaha soo socda lagu doonayo meelmarinta qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence in xilka madaxtinimada uu uga qaado Mr Trump dimuqraadiyiinta ayaa kadib Mr Trump ku soo oogi doona eedeemo kicin ah iyo doorkii uu ku lahaa weerarkii dhismaha Capitol maalintii shalay ahayd Mrs Pelosi ayaa qorsheeda u gudbisay xildhibaanada kaas oo si rasmi ah looga codsanayo Mr Pence inuu adeegsado wax ka bedelkii 25aad ee dastuurka dalkaas oo ogolaanaya inuu noqdo si hayaa xilka madaxweynaha isla markaana uu aqalka cad ka saaro Mr Trump annaga oo difaacayna dastuurkeena iyo dimuqraadiyadeena si degdeg ah ayaan u howlgali doonaa sababtoo ah madaxweynaha waxa uu qatar muuqata ku yahay labadaba ay tiri warqadeeda ayaa waxa sidoo kale ku xusan intan ay noqon doonto talaabadii ugu horeysay isla markaana dimuqraadiyiintu ay ka shaqeyn doonaan sharciga xilka qaadista xubin ka tirsan dimuqraadiga ayaa telefishinka CNN u sheegay in inkastoo codka loo qaadayo xilka qaadista Mr Trump ay dhici doonto toddobaadkan dhexdiisa haddana xisbiga sanadka oo u gudbin doono maxkamadeen ilaa ay ka dhamaato 100 maalmood ee ugu horeeya Joe Biden taas ayaa Mr Biden u ogolaan doonta inuu ansixiyo golihiisa wasiirada uuna hirgeliyo siyaasadiisa ay ka mid tahay wax ka qabashada coronavirus taas oo ay noqonayso inuu sanadka sugo haddii uu hayo qorshaha xilka qaadista Mr Trump ma uusan soo hadlin tan iyo jimcihii intii laga mamnuucay dhowr shirkadood oo baraha bulshada oo ka mid yahay Twitterka
axaddii si kastaba aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha uu talaadada u safri doono Texas si uu booqdo ballaarinta derbiga xadka Mexico. Mr. Trump ayaa dimuqraadiyiinta iyo tiro badan oo ka tirsan jamhuuriga ku eedeeyeen inuu gacan ku lahaa weerarkii Arbacadii lagu qaaday dhismaha Kongareeska oo 5 qof ku geeriyoodeen. balse xildhibaanada jamhuuriga ee sanadka midkoodna ma uusan sheegin inuu codeyn doono xilka qaadistiisa. xildhibaan kale oo jamhuuriga kana tirsan sanadka Batomi ayaa shalay Mr. Trump ugu baaqay inuu iscasilo. guud ahaan saaxiibayaal waa naga inta warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada ku mahadsanidina daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.